koobka adduunka ayaa soo gaaray heerka afar dhamaadka ama semi-finalka. afar kooxood oo kaliya ayaa isugu soo hartay iyadoo mid ka mid ah afartaas kooxood ay kor u qaadi doonto bilada koobka adduunka ee 2022 18 bishan. balse intaas la gaarin ku soo dhawaada falanqaynta kulamada semi-finalka la dheeli doono. Argentina iyo Croatia ayaa iska hor imaanaya. Messi oo laba kulan oo kaliya u jiro inuu soo afjaro dooda ku aadan cidda u qalanta inay noqoto goodka kubadda cagta caalamka. Morocco oo iyadu mar horeba taariikh u dhigtay Afrika fursad intee leeg ay u haysataa inay ka soo gudubto France isla markaasna ay iska xaadiriso finalka koobka adduunka. ku soo dhawaada falanqaynta kulamada semi-finalka la dheeli doono. waxaan sidoo kale milicsan doonaa kulamadii quarter finalka la dheelay. Brazil wixii ku dhacaan la yaabay iyo Portugal fajicii argagaxi ka soo gaaray Morocco ayaan sidoo kale isla fiiri doonaa. ku soo dhawaada Cafe Sports. hadday tahay markii ugu horeeyay channelka daawanaysid fadlan subscribe kugu cimaamad si aad u hesho wararkii iyo falanqaymihii ugu dambeeyay ee koobka adduunka kooxdaada iyo guud ahaan kubadda cagta. mahadsanid. waayahay saaxiibayaal, koobka adduunka oo sanadkan u muuqda inuu yahay koobka adduunka ee abad ugu fiicnay marka laga hadlayo natiijooyinka lama filaanka ah ee soo baxay iyo sida kooxo waaweyn oo isku mooday inay iyagu waxa laga qabtaan ay yihiin looga badiyay ayaa maartay sanadkan xiise kala leh. intaanan u gudagelin kulamada semi-finalka la dheeli doono iyo falanqayntooda, bal haddaan wax yar dumar ku sameeyno kulamadii quarter finalka la dheelay. Brazil iyo Croatia ayaa iska hor yimid, penalty ayaa lagu kala badiyay, laakiin Croatia waxa ay soo bandhigtay wax kale ay ahaayeen. Brazil oo saan ognahay kulankii hore ka badisay kooxdii ka socotay Korea, bandhig cajiib soo bandhigtay, goolal aan caadi ahayn dhalisay, dancing iyo qoobka ciyaar xitaa uusan macallinku ka maqnayn nagu madadaaliyay. kalsoonidu waxa la yiri waa mid laba af laho, si aad noloshaada guul u gaarto kalsooni waad u baahan tahay, laakiin kalsoonidu hadday ka badato ayada ayaa ku jari karto marka qaar halisteeda ayay wadataa. marka Brazil kalsoonideeda ayaa dishay ayaa la leeyahay. runtii markii kulankii aad fiirsatay aan fiirsanay ma muuqan Brazil inay diyaar u ahayd inay kooxda kubadda ka haysanayso kubabaasanaysa ay ka hor yimaadaan ee kaliya waxaad moodaa inay niyadeedu ku jirto inay ayagu maamuli doonaano ayaga laga hibayso doono kusoo tala galeen ayaad moodaaho aysan diyaar u ahayn inay koox kale kubad la qaybsadaan. marka Brazil waa laga yaabsaday. Croatia iyada daan fiirino waa koox u dhisan kubadda cagta ee koobabka. kubadda cag ee koob loo ciyaaray hadda deelay waxa u baahan tahay inaad ciyaarta ku jirtid. uma baahnid inaad gool badan dhalisid, uma baahnid inaad maarad kubad qurxan soo bandhigtid. waxa kaliya u baahan tahay waa inaad ciyaarta ku jirtid, waa inaad goolal aan laga hormarin xilli hore oon ciyaarta laga dilin. marka Croatia sanadkii 2018 koobkii kan ka horeeyay wixii ay soo bandhigeen waa ogeyn wixii wax la mid ah ay hadda wadaan, inkastoo aysan xilligaas iyo hadda isku quality ahayn haddana isku system ayay dheelayaan. waa koox maaragtay aad moodid in ay kulan walba ku talagalayaan inay dheelaan penalty ama ay extra time maaragtay ciyaarta u diraan. marka aad fiiriso qaabka u dheelayaan kubad maaragtay si tartiib ah la isaga baabaasanayo aan waqti badan la gelinin in weerar iyo waxaas maaragtay xoog lagu raadiyo ama gool lagu dhaliyo. haddii xitaa penalty la gaarana quality u leh oo penalty xaqiisa ku fiican, goalkeeper safitaan ku fiican haysta. marka Croatia oo meel ku tababaranaysa da aragtid waxa kaliya ay u tababaranayaan waa sidii penalty loo dhali lahaa, sidii loo safe lahaa iyo sidii kubadda loo baabaasan lahaa. maahane meeshaas wax kale kama socdaan ayaa leeyahay. kulankii kale Netherlands iyo Argentina daan fiirino mid kamid ah ama kulankii ugu fiicnaa World Cup-ka sanadkan ayaa la dhihi karaa. wax walba ayuu lahaay, hadday tahay dagaal, hadday tahay physicality hadii la yiraahdo, hadday tahay kaarar la siiyo, hadday tahay wax walba excitement, goal dhalin, comebacks, penalties, wax walba ayuu lahaa kulankan. Netherlands macallin Louis van Gaal waxaan ogeyn in kulankii kan ka horeeyay ay la dheeleen kooxdii wadanka Mareykanka ka socotay in tacticadiisa iyo qaabka kooxaas ula dheelay lagu amaanay, laakiin kulankan tactical aan ayuu soo galay lihi karaaho. sheekadii oo Mareykanka ku dilay ayuu damcay inuu ku dilo Argentina, laakiin Argentina waa koox iyadu wax isku qaraabato nin geed gali jiray geed looma galo ayaa ka dhacday. Argentina counter attack aad ku heshay Mareykanka ku helmaysid. Argentina saan ognahay 2 gool hormartay, mucjisada Messi haddaadan gool uusan ka dhalin xitaa wax aan cidna qiyaasi karin ayuu kugu caawinayaa. marka Argentina sanadkan meel u socotaa, laakiin dib ayaan ku gali doonaa falanqaynteeda iyo kulanka ay la dheeli doonaan Croatia. halkaas daan uga gudubno kulamadii kale la ciyaaray. Morocco iyo Portugal maxaan ka dhahnaa? Morocco oo noqotay kooxda ugu horeeyay ee Afrika socota ee semi-finalka koobka adduunka soo gaarta. Portugal ayay ka yaabsatay. Morocco goolha kala hormarto waxay ka dhigan tahay go home ticket lagu jaray ka go'an ay ka dhigan tahay. Morocco ay gool kala hormarto ciyaartaas iska dhamee, forfeit iska qaado, xaafadaad iska aad, boorsooyinkaaga iska xambaaro, wassalaamu calaykum. Morocco
oon ognahay in sanadkan aan gool ay kooxda kasoo horjeeda ka dhalin marka laga reebo hal gool oo gool ahaa iyagu iska dhaliyeen. Portugal maaragtay waxay isku dayday wax walba inay kulankan badiso. Half time ka hor waxaa aragnay Portugal oo kubadda maaragtay dheer iyo difaacyada gadaashooda iyo geesaha kubadda dheer isku dayayso. Half time kadib waxaa aragnay Morocco oo kubad geesaha kasoo korayso madaxii Ronaldo iyo lagu raadinayo. Laakiin wax walba ay tahay Morocco waxba uga qaadi maysid. Nimankan inaan gool ka dhalisid ha ka sugin. Hadday gool ka dhaliyaan xaafadaada iska aad waqti iska lumin. Marka Morocco waxa ay soo bandhigtay wax cajiib waay sanadkaana fursadeeda waan ka hadli doonaa oo kulamada falanqeyntooda oo gali doonaa dambe. Kulankii kale England iyo France hadaan fiirino, France runtii waxay u muuqataa inay mar kale fursad u haysato inay koobka adduunka guuleysato. Marka France ciyaar aan caadi ahayn ay habeen hore soo bandhigtay iyadana oo u muuqata inay tahay ciyaar natiijo loo dheelay oo orod iyo aysan ku jirin excitement kale. Ingiriiska ayagana waxa waaye gurigooda ay aadeen xilli hore mar walba hadda ayaga lagu yaqaan inay gurigooda iska aadaan markii meelahan la soo gaaro. wax walba badan ay ka hadlaan talentiga ay leeyihiin iyo ciyaarada haystaan iyo xalba laakiin Ingiriisku marnaba uma muuqan inay diyaar u yihiin inay halkan dhaafaan. kulanka soo horeeya ee u dhaxeeya Argentina iyo Croatia haddaan ku hormarno waxaa la dheeli doonaa 4 habeenimo xilliga Soomaaliya iyo kulankan soo gali doonaa. Lionel Messi sanadkan runtii waxaad moodaa inuu meel u wado Argentina. waxaan soo aragnay tan iyo markii ay ka badisay kooxda wadanka Saudi Arabia Argentina isbedel weyn inuu ku yimid oo ay bedeleen qaabkii u dheelayeen qadadka dhexe ay isbedel fiican weyn ku sameeyeen marka qaar. Lionel Messi mucjisadiisa lama celi karo sanadkan runtii waxay u muuqataa inay tahay sanadkii ugu dambeeyay ama waa sanadkiiba ugu dambeeyay ee Lionel Messi ee World Cup-ka. Argentina runtii waxay u muuqataa inay wax walba ay sameey karto ay sameey doonto si ay Lionel Messi koobkan gacanta u geliso. xitaa kulankii ay ka soo baxeen gruubyada qaabkii u dabaaldegayeen iyo markaad fiiris ciyaarta ka bacdigeed iyo ciyaarnada si isugu xiran yihiin dadaalka ka muuqda iyo waliba Lionel Messi dadaalka uu bixinayo sanadkan waxa arkaysaa Lionel Messi oo u muuqda inuu kooxda inteeda kale marka laga soo tago difaacashada oo xil iska saar asagu dhanka weerarka waxa arkaysaa Lionel Messi oo kubad ka shoodaya meel uu markii hore isku dayi jirin waxyaalo uu markii hore sameey jirin oo dadaal extra uu sameeyo. marka Argentina runtii wax walba ay ku qaadato ayay fursad ay u haysataa inay sanadkan koobka adduunka ku guuleysato. mid kamid ah taakada ugu adag ay wajihi karaan waa Croatia idaan fiirino waa koox saan hore soo sheegnay u dhisan tournament football waa koox mar walba dadaal gelisa inay ciyaarta ku jirto oo gool laga hormarin gool laga dhalin in haddii penalty la gaarana runtii penaltiyada iyo extra time-ka maaragtay record fiican ka haysata 4 jeer ayay koobka adduunka penaltiyo kulamaha dheeleen 4tii goorba ayaga badiyay. sanadkii horena waxay dhigeen waa ogeen koobkii hore World Cup-ka 2018 marka kulankan waa kulan aad u xiiso badan laakiin waxa loo badanayaa inay Argentina soo bixi doonto ayadoo mucjisada Messi halkeeda ka soo socdo doonto isla markaasna ay Argentina World Cup-ka finalkiisa iska xaadiri doonto. kulanka kala daan fiirino France iyo Morocco ayaa iska hor imaan doona. Morocco runtii sanadkan waxa ay sameysay waa wax aan indhaba caadi ahayn marka la fiirsho groupka ay ku jireen xulalka ay la dheeleen Spain iyo Belgium ay ka badiyeen iyo waliba Portugal oo ahayd mid kamid ah xulalkii loo saadalinayay koobka. laakiin taaka weyn ayaa u taala oo France inay ka gudbaan ay u baahan yihiin si ay finalka u tagaan isla markaasna ay fursad u helaan ay koobka ku guuleystaan. laakiin xulka Morocco runtii wax walba ayaa ka suurtaabo haddayba intaasoo kooxood soo garaaceen cid aysan ka badi karin miyaa jirto. difaacoodii Mbappe ima lagu furfuri karaa waxaan aragnay Mbappe oo kulankii France ay la dheelaysay England aan runtii wax badan muujin oo Kyle Walker waxa la dhihi karaa ilaa iyo xad oo jeebka gashtay. difaacida Morocco maxaa laga filayaa Kyle Walker haduu jeebku gashanayo. Morocco waxa ay soo bandhigtay wax xushmad ay u baahan yihiin oo France inay ka badiyaan fursad ay u haystaan isla markaasna ay finalka u tagaan. France inay daan fiirino France runtii ayadu waxaad moodaa inay kubad experience ku dhisan iyo maaragtay khibrad ay dheelayso oo aysan waqti badan gelinin inay kubad haysato isku dayayso inta badan inay wax difaacat isla markaasna ay Giroud crosses ku raadiso oo runtii ah nin inta badan aan laga hadlin laakiin ah wariyahan mid kamid ah wariyahanada ugu fiican ee caalamka. kulankaas asagana maalinta Arbacada ayaa la dheeli doonaa 10 habeenimo ayuu isna soo gali doonaa. mar walbana falanqeynta ugu dambeeyay ee World Cup iyo guud ahaan ciyaaraha waxaad ka soo kartaa Cafe Sports. haddii aad channelka subscribe ku saarneen fadlan subscribe ugu cimaamad waa aniga Cabdikaafi Cabdullaahi oo idin leh nabadgelyo.